yaraantaadii hal kelmad ku qeex. fanka ma jira qof aad ku tartantahay imka dad badan baan iga dhaxaa dabacsanida hadalkiyo degananti inaya soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni Sam Talks caawa martida barnaamijku waa nin badan heesihiisa YouTube-ka aad uga daawateen Cali Seki soo dhaw saaxiib mawlid aad bad mahadsantahay saaxiib kaaga mahad celinaysa barnaamijkaaga ugu soo marti qaaday ee waliba ii soo dhaweysay aniguna aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkayga ku soo barnaamijkayga su'aalaha dadka aan ku soo marti qaadan weydiinaya waa su'aalo qoran oo kama soo fikiro su'aalahan waxa diyaariyay aniga iyo teamkayga sax marka waxa jiraya su'aalo si guud ah ku weydiinayo laakiin su'aalaha inta ugu badan halkaan kaga jawaabaysaa su'aalahan waa 100 su'aalood marka adigu intii kaaga soo baxda mid kaga jawaabi doontaa haddii la yiraahdo insha Allah marka mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad saaxiibaan kaaga mahad celinaya mahadsanid walaal ugu horeyn rabadaan wanaagsan rabadaan mubaarak rabadaan tiim saasha ka tagay maalin igama tagin mid tidbaan anigu midhigama tago ma sha Allah runtii waa bil cibaado su'aal guud baan ku weydiinaya hadii lagu dhaho Cali Seki hal kelmad ku qeex maxaad ku qeexi lahayd haddii aniga naftayda lagu oran lahaa hal kelmad ku qeex wallahi laga yaabo dadka qaar inay u arkaan in naftayda wanaajinayo laakiin haddii aan run sheego waxaan ku qeexi lahaa ixtiraam ma sha Allah qof ixtiraam badan wata waayo sida qof available oo tahay oo la heli karayo baa laga garan karaya kulay marka waxa tahay fanaan dadka Soomaalida heesiisa jecel yihiin la dhageysto Soomaalidu yaqaanaan imisa sanay ku qaatay inaad noqoto fanaan Soomaalida dhexdeeda laga yaqaano wallahi aan bismiillah Soomaalida dhexdeeda saas wali lagaga sii yaqaanaa marka heerkii aan ugu rabay aan gaaro ayun baan bal qiimeyn doonaa inta sanay ugu qaadatay yaraantaadii hal kelmad ku qeex okay yaraantaydii oo aanay weynaanta ku jirin yaraantaydii haddaan isiraahdo hal kelmad ku qeex waxaan ahaa qof wax akhriska aad u jecel waayahay kuweejanto su'aasha labaad shay aanad la'aantii noolaan karin waayahay taas way fududahay waa cibaadada Ilaahay ma sha Allah cibaadada la'aantii lama noolaan karo noloshana ma qurux badnaato ma la oran karaa adigu fanka waxa soo gashay adigoo yar oo da'yar anu ruuxaantii waxaan dhageystay adigoo heestada adigoo da'yar qaadaya ma la soo karayaa qof waxa tahay commitment oo yaani halkii uu rabay ay u muuqatay intaad fanka waday ha way iga gooneed oo waxay ahayd wax nafteedu rabto anoo yar baan soo galay waan yaraa waqtigaas aad baan yaraa fanka ma jira qof aad ku tartantaan kubaddu imika waxa jira Ronaldo iyo Messi way ku tartami jireen ilaa waqti badan bay laba qof competitor ku hayeen absolutely fanka ma jira qof saas oo adiga tartami jirta anigu cid kasta heshiis baan dhalinyarada fanka ku jirta oo dhan waa isku wada wanaagsanaa asxaabtayda weeye marka noloshaadana challenge lama geliyo saasana ugu aaminsanahay waxaan aaminsanahay waxaad adigu rabto ma garanaysaa haddaad challenge geliso wax badan baad ku waayi kartaa marka challenge-gu marnaba nolosha ma qurxiyo waxaad sheegtaa naanays aad necbaan jirtay in lagugu yeedho su-aashaas haddaan kaaga jawaabo waxaan necbaan jiray magaca Caliyare wallahi aad baan u necbaan jiray magacaas yaraantaydii waa sidee marka cawaala yar ilaa imka loo dhaahdo markaan fanka soo galay wuxuu ahaa magacii ugu badnaa lagu yeeri jiray Caliyare magacayga caadiga ah aan ma garanaysaa anigu watay waxa ka saameyn badnayd inay dadku ugu yeedhaan Caliyare hadduu yahay qofka wariyaha hadduu yahay qofka ma garanaysaa dad intaanu fanka ku wada jirnay hadday yihiin dadka caadiga marka magacaas aad u necbaan jiray yaraantaydii qofka markuu fanka galayo oo maartay fanaan noqonayo waxa ugu weynee la siraado qofkaas inuu yeeshaa muhiim waa maxay muhiimadu waa codkiisa sax adiga yaa ku qiimeeyay markii ugu horeysay codkaaga wallahi dhalinyarada asxaabaha inuu baa hortay goon jiray fanka madgashid ma garanaysaa waad ku soo baxaysaa markii dambana aan hargeysa ibina ustaad Cabdinaasir Macalin Cadiid Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo halka baan uga ducaynayaa ayaa ahaa qofkii koowaad ee qiimeeyay adiga sidii sheegtay dhalinyaro badan baa ku goran jirtay wad cod macaan tahay codkaagu wastan wad heesi kartaa wasdan balka war calo hadan ugu caaw ku dhada inta adiga waqtiga la goran jiray imka dad badan baan iga yiraahdaa oo soo dhaweynaa
bahdayda fanka haddaan nahay org soo dhaweynaa halkaana waxaanu ka fahanay inaad malaa xaggayga lug usoo yara qaadayso marka go-aan buuxa soo gaadh org soo dhaweynanaa nabiye adigu waxaa laga yaabaa inaad qofku markuu heesaad yacni qiimeyn karto absolutely codkiisa inuu qof heesi dadka hortooda uma ku qiimeeya walaa inuu qof heesi inaanu heesi karin uu yahay anigoo lahayn dee fankan gelaya ha laakiin marar badan dad dee aniga aan ii dhodhow way igu yidhaahdeen oo way igu celceliyeen may arrinkaas si uu u dhammaado markhaatina u yeesho intaasoo kuna qof ina daawanaysa anaa markhaati uga noqoto dadka hortoodaan kuma qiimeeya inoo haysa waay hana yeexan way waxaad u leedahay haddaan mataqaanaa aan halkeeda dhigi waayo way ku waaleen moonata dadkaasi mulida way anigu waxaan aad heesiisa u jecelahay ee la foolay Isku anoo dooq yar weyn. baan dhegeysan jiray isku dooqbayna marka heestan qaadi waxa weeyaan hees odhan jirtay dabacsanida hadalkiyo deganaantu inay yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliyeen kaga doortay kayrka dugsi dhaxanta celiyo dawadeydayta adigoo daldheer jiran halkan ka dareemaa macawaan ku jecelahay walaal si toosa noogu soo biir aad baad u cid macaanta saaxib wallahi really noloshaada 10 sano haddii dib loo celin lahaa maxaad samayn lahayd noloshayda 10 sano ka hor maxaa kaa dhex guuxayay 10 sano ka hor 10 sano ka hor horta waxbarashaan ku jiro waan yaraa marka waxbarashadu ma sii xoojin lahaa 10 sano ka hor yaraanteedii waxbarashadan jeclaa marka waxbarashadu baan awood sii saari lahaa waay hal talo oo hooyadaa ku siisay wallahi talooyinka hooyaday siisay haddaan israahdo halkan kusoo koob horta 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 waxaan ku tirada way dhamaanaysaa dhinaca kale u degaysaa waay marka hal qodob baan ka xusayaa waxa weeye hooyaday waxay aad igala dardaarantaa markasta balwadda sax marka waxyaabaha ugu badan ee ay hooyaday yaraanteedii igala tiri jirtay balwadda ka mid ah sax alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsanahay in taladii hooyaday aan qaatay oo ilaa hadda aanan wax balwada yeelanin hal fariin odan hooyo mar hooy macaan aad baan ku salaamayaa oo ku jecelahay ilaahay fi aakhira waxa ku barakeeyo adduunkana waxaan kugu ducaynayaa cimri dherer iyo caafimaad aakhirana waxaan kugu ducaynayaa jannatul firdaws inuu ilaahay kugu abaalmariyo abaalkaaga ma gudi karo guntii iyo gunaanadkii waay kolley su-aalaan saaxib anu si individual ku weydiin way jirin su-aalo mataqaanaa barnaamijkan ah oo aan ku weydiin way jiraan sax su-aalahan ka warran say u muuqdaan su-aalahu aad uma adkayn waana yara adkaayeen markaa labadaba way isugu jireen aad baan kuugu mahad celinayaa saaxiib kuuguna bogaadinayaa inaad shaqadaas sii wado